kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa Somali Inside Media ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena labaad oo xilligan oo kale aad daawataan madaxweyne Donald Trump wuxuu qabtay shir saxaafadeed arrimo badan ayuu ka hadlay isaga oo yiri ha igu khasbina inaan degdego waxaan ku jirnay dagaalka Vietnam 18 sano waxaan ku jirnay dagaalkii labaad ee adduunka ku dhawaad 5 sano ilaa hadda waxa la joogaa kaliya 6 toddobaad isaga oo ka hadlayay dagaalka u dhaxeeya Israel iyo Mareykanka oo isku dhinaca iyo Iran ninka odaga ahaa uu dhawaaqay war aan inaba caadi ahayn oo culus ayuu ka hadlay wuxuu sheegay ama dib u soo faagay taariikh badan oo Mareykanka uu leeyahay isaga oo dhahaya ha igu khasbina inaan degdego taariikh fog ayaan leenahay wuxuuna tusaale ahaan u soo qaatay dagaaladii Vietnam iyo sidoo kale Mareykanka uu la galay ama dagaalkii labaad ee adduunka ee 5 sano ku dhawaad Mareykanka uu ku jiray iyo warar kale oo waaweyn ayuu soo qaatay ninkan oo uu ka hadlay haddaba Trump waa shakhsi nooca waxa uu ka hadlayo iyo ficiladiisu sameeyeen kuwa iswaafaqaya waan ku haya sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda Iran laftirkeeda war ay soo saartay waxay sheegtay inaysan jirin sabab Iran kaliya ku waajibinaya inay ilaaliso xabad joojinta xilli Mareykanka uu jabinayo sida ay warisay Al Jazeera wasaaradda arrimaha dibadda warkeedu waa cad yahay ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran waxay leedahay xabad joojin aysan Mareykanka uusan ixtiraamin anaguna ma ixtiraameen sabab inuu kaliyan u sameeyay xabad joojin ma jirto ilayeen soo dhaw saaxib hadii ay channel ku cusub tahay nagu soo biir oo subscribe soo dhaamaasan tahay warka Trump ayaan isla jeexjeexayna aragtidaadana oo aad nala wadaagi doontaa wuxuu leeyahay shir jaraa'id oo saxaafadda u qabtay arrimo badan buu kaga hadlay wuxuu leeyahay ugu khasbina inaan degdego macnaha su'aalihii la weydiiyay ayuu si adag kaga falcelinaya oo uu leeyahay hayo khasbina inaan degdego oo aan hadlo wuxuu la jeedaa daca wax badan baa ka hadlaya Vietnam wuxuu yiri 18 sano ayaan dagaal ku jirnay dagaalkii adduunka 5 sano uu qaatay kaliya 6 toddobaad baa la joogaa waana buuqaysan buu yiri miyaadan diiwaanka dib ugu laaban iyo taariikha ayuu leeyahay hana igu khasbina inaan degdego sidoo kale wuxuu intaas ku daray Iran ayaa noo timid oo tiri waxaan ogolaanaynaa in la furo Mareykanka dhammaan xubnaha kooxdeedu way ku faraxsanaayeen aniga mooye waxaan ku iri sug hal daqiiqo hadii la furo waxay ka dhigan tahay inay kasbanayaan 500 milyan maalintii annaga ayaa ah kan Mareykanka xiray macnaha aniga ayaa ah ninka Mareykanka xiray mooye Iran ma aha ayuu ninkan ku leeyahay inta kadib wariye ayaa weydiiyay Trump maxaad u sheegaysaa shacabka Mareykanka ee isweydiinaya intee xaaladan sii socon doonta Trump ayaa ku jawaabay sida aad og tahay waxay wajahayaan qiimaha shidaalka oo sare u kacay wuxuu yiri adigu waxa tahay qof xun ma maqashay waxa aan hadda sheegay imise sana ayuu socday dagaalkii Vietnam wariyahan oo lagu magacaabo Amir Prince Harry ayaa waxa uu markaasi sheegay inuu doonayo in wax badan uu ka qabto joojinta dagaalka Ukraine Trump ayaa lagu yiri mowduuca ka bixin ee su'aasha aan ku weydiinay nagaga jawaab ilaa intee buu dagaalka sii socon doonaa Trumpna wuxuu bilaabay inuu ka xeeladeysto su'aalihii ay warbaahinta sida tooska u weydiinayso mar kale ayuu wariyay ku celiyay shacabka Mareykanka waxay filayaan qiimaha shidaalka oo hoos u dhac ku yimaada muddo yar ma ogtihiin ayuu yiri Trump markiisa waxa aanu ku helayno bedelkeeda Iran oo aan lahayn hub nuclear shidaal iyo wax qaaliyo baad ka sheekeynaysan buu yiri bahdiina saxaafadda amuriyash laakiin ma ogtihiin buu yiri waxa markaasi aan ka faa'iideyno hadii Iran oo plan nuclear ee la helo ayuu markaasi taagan yahay madaxweyne Donald Trump ugu dambeeyna mowduucan waxa ku soo xiriya wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegtay inaysan jirin sabab Iran kaliya ku waajibinaysa ilaalinta xabad joojinta hadii Mareykanka uu jabiyo sidan waxa ku waramaysa ama ku waramaya wargeyska aan raahday ee telefishinka caalamiga ee Al Jazeera Al Jazeera qaybta Carabiga waxay saacad u sheegtay in markaasi saraakiil Iran gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo ka soo xiganayso inay saacad u sheegeen in aysan jirin sabab Iran oo kaliya ku khasbi karto ilaalinta xabad joojinta iyadoo oo Mareykanka uusan markaasi ku khasbanayn xabad joojinta iyo in uu sii wado guud ahaan mowduucana saaxiib waa naga inta hadii aad nagu cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe soo tiraado muuqaalka like aad saarto saaxiibadana u sii share gareyso waa maasan tahay saaxiib